يوم مدحوينة كحيجين كجمهورية الصومال أهنا كسمها مدحوينها عبد الرحمن عبد الله إسماعيل كلها وسير هذا يالكي نرجوجا وسير كهرمرية مالية وسير كجديد كي هرمرية جدك وسير كدليل عيارها أجسمها جودة مدحوينة بس كحيجين كحلبانة مرتشرة قاعدة السكوت بالدماتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وجدنا حفلة النواسب الفاهية برزنتيشن اللي lagu sameeyay waxaan u baahanahay inaynu xadidno gaadiidka mas'uuliyadda qaada ee rakaabka u kala qaada gobolada ama badeecadaha gobolada u kala goosha qaada wasaaradda mandatekeeda sida uu sheegayo xeer nidaamyaha madaxweynaha xeer nidaamyo 01/2018 mas'uuliyaddeeda koowaad waxa weeye in la helo gaadiid rakaabka iyo badeecadaha u kala qaada gobolada dalka oo nabdoon oo bad qaba arrinta wasaaraddu iyadoo ka duuleysa isla markaana maanka ku haysa shilalkii badnaa ee waddankeena ka dhacay dhimashooyinkii faraha badnaa iyo dhibaatooyinkii waddankeena soo gaadhay waxaanu wasaarad ahaan hindisnay in la helo qalab lagu xadido xawaaraha gaadiidka daraasadii wasaaraddu samaysay bilowgii sanadka 2018 waxaan ku ogaanay shilalka inay sababaan 3 shay wada xumo iyo darawal xumo iyo gaari xumo wasaaraddu 3 shayba midba dhinac bay wax ka qabatay iyadoo liisankiina procedure-kii loo mariyay la adkeeyay wadooyinkiina runtii intii karaankeena ee qaran ahaan aynu wada qaado helayna aan gacanta ku hayno sidoo kale waxaa dhawaan wasaaraddu ay hirgelin doontaa geerashada MOT ee lagu dayactirayo gaadiidka ama lagu horumariyo quality-gooda sanadkiiba mar laakiin mushkiladda ugu weyn waxa weeye iyadoo ummadda reer Soomaaliya isku raacday in wada xumo shilalka qaar ay keento waxaan hadda wasaarad ahaan ogaanay wadooyinka la sameeyay ee asfalka la dhigay inay ka dhimasho badan yihiin kuwii hogga for example tusaale yar wadada airport ka timaada ilaa saldhigga dhexe oo asfal la dhigay waxa ku dhintay ugu yaraan tiro dhowr iyo 3 qof ayaa ku dhintay sanadkii gudihiisa waana magaalada gudaheeda waxay dhalinyaradu habeenkii ilaa kuwa lacagta ka yimaadeen isugu yimaadaan waxay sameeyeen hal break gaariga jiidaan intii ka soo daayaan speed aad iyo aad u badan iyo ku socda marka waxaan ogaanay mushkiladda ugu weyn ee shilalka waddanka keenta 70% in ka badan waxa weeye xawaaraha waa darawal qayr mas'uula oo ku socday xawaare ka badan intii loogu talagalay waxa halkan aan doonaynaa inaan ka sheegno oo dhibaatada lagu kalifay in xalka la raadiyo basaska u kala goosho gobolada ee dadka qaada ee 20 qof sida ama 30 qof sida mararka qaarkood waxay ka dheereeyaan laankuusalada 140 inta ugu yar ku socda waxa ugu dambeeyay shilkii ka dhacay abdaal agteeda darawalku ku socday 135 km/h isagoo 135 km ku socda ayuu goorad soo galay isla markaana uu telefoon qabo dadku sidaana kama yareen 25 qof waxa ka dhacay khasaarihii ummadeena oo dhan ay la geeytay waxaan u baahanahay qalabkan xadidaya sida xeerka nabadgelyadu sheegayso 80 km wax ka badan inaan lagu socon wadooyinka waddankeena gudihiisa ama gaadiidka u kala gooshay arrintaa waxaa markhaati u ah waxaa fuliyey oo xeerka dabaqay hay'adaha dalka jooga gaadiidkooda kuma badna 75 km bay ka dhigeen dhammaan hay'adaha waddanka jooga gaadiidkooda way yartay gaari hay'adaha shil galay lacag aad iyo aad bay u adag tahay waxaanu doonaynaa markaa stage-ka labaad iyo ka saddexaad waxaynu u gudbi doonaa shacbiga laakiin iminka 4 qolaan ku bilaabaynaa waxaan ku bilaabaynaa 1 basaska u kala goosho gobolada ee dadka qaada rakaabka mas'uuliyadda qaada 2 booyadaha biyaha soo dhaamiya 3 waxaan u gudbaynaa gawaadiidka qaadayaasha oo iyaguna magaalooyinka dhibaato badan ku haya oo kala ku xidhaya uu yahay mid offensive leh oo magaalada markuu soo dhawaaday speedkiisa dhimaya haddii la yiraahdo waxa ugu dambeyn doona gaadiidka waaweyn ee iyaguna xamuulka qaada oo marar badan shilo badan keenay waxa halkan aan doonayaa sidoo kale inaan ka sheego xafladan teedii labaad waxay ka socotaa hadda degmada Burco gobolka Togdheer halkaas ay joogaan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda iyo agaasimayaashii kale waxaan ugu talagalay gaadiidka in laga diiwaangeliyo 2 gobol gobolka Muruujac iyo gobolka Togdheer 3 gobol ee bariga waxa laga diiwaangelinayaa Togdheer 3 gobol ee galbeedka waxa laga diiwaangelinayaa Hargeysa gaari wada shirkadahaas ay leeyihiin waxa lagu dhijin doonaa astaan yar oo Siriya oo dhinaca laga dhijin doono oo midaba oo la buufinayo waxaana la siin doonaa diiwaangelin wasaaraddu ay leedahay
kuwa rakaabka kuwa qaada badeecadahana nambar casaan ayay dhinaca laga heli doonaa. waxa ugu dambeyn aan eegi doonaa liisanka darawalnimada Somaliland. darajooyin baan u sameynay hore saa ogeydeen. darajada ugu sareysa waa darajada D la yiraahdo, waa qof rakaab qaadaya ama badeecad qaadaya. imtixaankiisina waa loo diyaariyey. waxaan hubin doonaa dhammaan darawalada waddanka jooga ee mas'uuliyadda qaadaya inay sitaan liisanka darajada D ayaan hubin doonaa. saddexdaas shay marka laga qabto speedka fanarka lagu xidho xawaarihiisa la xadido, darawalkana la hubiyo inuu sita liisanka darajada D, serial numberna loo sameeyo oo haddaanu serial ka lahayn aanu ka gudbi doonin kontaroolada. waxaan isleenahay waxay hoos ugu doontaa shilalka. aad iyo aad baa u mahadsantihiin marti sharafta dhammaantiin. wassalaamu calaykum.